وأنا كقول بيصير بالحقيقة تعال حاول نروح وين برجي أروح ونشري كمان عبد الشاه بدرس باوية لو ما أنكعبين إيراد دركي على الحمدة يا لك السكر والشاه وحكى الراعة قبلها الصوماليات رجع السيدة وقورايا waxaan maanta tacsiyo diray horta dhamaan Caasha Ilyas family ay ka dhimatay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dhamaan ilaahay ehelkii qarabadiisa mariyeen ka siiyo waxaan u soo baxnay barnaamij aan kaga dhigayno arrinkii foosho xumeed ee ka dhacay dalkeena Soomaaliya gaar ahaan magaalada Galkayo oo lagu kaxay walaashan Caasha oo ah ubixi mustaqbalka gabadh yar oo Soomaaliyeed marka hore familkeedii iyo qoyska ka geeriyotay waxaan leenahay ilaahay samiriyo iimaan hay ka siiyo dhamaan gobolada Soomaaliyeedna waxaan baaq ugu dirayaa inay arrinkaas ka dhidhiyaan waa sharaf dhac iyo tacadiyo xun oo lagu kaxayo gabdhaheena sharafta lahaa ee Soomaaliyeed hadaynan maanta arrinka taaganaynaan ka dhidhiin waxa dhici doonta inay gobol walba ka bilaabato ay noqoto wax iska caadiya oo qofna ka jawaabin ama ka falcelin fadlan ka qayb qaado barnaamijyada dalka haweenku waa geed harweyn haweenku waa hoyga bilaa hooyo hilibkeeni weeye walaashay haniyo weeye hibiyo xaaskeeni weeye ragow hala dhowro hooyo laguna kufsaday magaalada Galkayo gobolka Mudug taasoo kufsi bas loo geystay falal xun aan la sheegi karin falalkaas ay u dhimatay walaashay runtii waan ka xunnahay mana ahayn Soomaaliya dawladda cusub waxaan ka codsanaynaa ee Puntland gaar ahaan uu ka yahay madaxweynaha Dani inay cadaalad hor keenaan Galmudug Caasha runtii ma ahayn gabadhii kaliya ee la kufsado balse iyada kufsi kaliya uma dhimane waa la jirdiray ka daranka jirkeeda waxa la dhacay dab runtii qofka soo damiir leh oo og yahay walaashiis iyo hooyadiis inuu sida u galo waa laga fiican yahay waxaan u sheegayaa gabdhaha Soomaaliyeed dhamaantood meel kasta ay joogaan inay arrinka ka dhidhiyaan ilaahay cadawga diinteena iyo cawaan macasaab ku helay cashay cadawga ku helay cadawga diinteena iyo cawaan macasaab ku helay nahay kufsiga loo geystay walaasheen Caasha waxaan dareenka naxdinta iyo murugada la wadaagaynaa waalidkeed ehelkeeda qaraabadii dhammaan ummadda Soomaaliyeed